oo awood ah waxaad kartaan oo awood iyo xoog ah maxaa la sheegay ومن رباط الخيل muxuu ahaa gantaaladii ugu waaweynaa marka la isticmaali jiray fardaha aadka u dheereeyay ahayn Soomaaliya fardaha aadka u dheereeyay ahayn waatan suurad wal caadiyad lagu amaanayo marka deel waxa lagu la hadlayaa lahjadii xilligay noolaayeen ka waran hadii dabaabadiya waxa loo sheego oo lagala hadlo waxa de macquul ma ahateen Soomaaliya xilligay noolaayeen ayaa waxay isticmaalayeen lagala hadlaya maxaa laga rabaa ujeedada maxay tahay ujeedada fardaha iyo awoodda loo diyaarsanayay turhibuuna bihi adu wallahi waxaad ku cabsiinaysaan cadawga ilaahay waa wax maanta la yiraahdo dhoolatuska waxa la yiraahdo way Soomaaliya wadamada inay dhoolatu sameeyaan dhoolatuska maxaa la sameeyay waa la isku cabsiinaya waxa lagu cabsiinaya cadow aad leedahay oo ogtahay iyo ku aadan ogeyn oo ka daawanaya maaragtay teknolojiyada iyo digital ku jira Soomaa marka ilaahay muxuu yiri cadawgiina aad garanaysaan maxaa kale la yiri waa aakhariina min duunihim la ta'lamuunahum idinku ma ogidin cadow aydan ogeyn ayaa dhoolatuskiina iyo awoodiina markuu maqlo isaguna si cabsanaya marka hada way hada ma aakhara laga sheekeynaya hadii lagu yiraahdo diinta aakharan bay ka hadlaysaa miyaan culul maadiya laga sheekeynin awood military hadii loo baahdo miyaan ciidan loo baahnayn aan hub loo baahnayn maanta ma fardaan u baahanay farda maanta baahi looma qabo marka aqoonteediina inaan barano qasab bay nagu noqonaysaa taasina